guud ahaanba Soomaaliland waxa maanta ka bilaabantay hawsha lagu bixinayo kaararka cusub ee dadweynuhu ay ka qayb galayaan doorashooyinka madaxweynenimada ee guddiga doorashooyinku maanta ay ku dhawaaqeen in Soomaaliland ay ka dhici doonaan bisha Juun 26keeda marka hore waa tan warbixin kale oo wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle oo nooga soo diray magaalada Hargeysa dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan gudaha Soomaaliland ayaa saaka u dareeray qaadashada kaarka cusub ee lagu bedelay kaarkii hore ee diiwaan gelinta hawsha bedelka kaararka codbixiyaasha oo qorshahoodu yahay inay kaga qayb galaan doorashada madaxtooyada ee soo socota ayaa ku bilaabantay jawi nabadgelyo iyadoo ay jiraan goobo iyo deegaano ay dib uga dhacday waqtigii loogu tala galay hawshani inay ka bilaabanto hooyo Xaliimo waa hooyada ah waxaana iyadoo aanu caafimaadkeedu wanaagsanayn ay u soo kalahday inay bedesho kaarkeedii hore iyadoo gacanta midig hayo oo hagaya wiil ay dhashay oo magaciisa noogu sheegay Axmed Maxamed Abiib ayaa waxa ay noqdeen qofkii ugu horeeyay ee qaatay kaarka cusub ee codbixiyaasha Soomaaliland hooyaday oo Soomaaliland dumarkii u daaweyn kamid ah wada inaan noqday qofkii ugu horeeyay ee hay'adda shaqaalaha ka qaatay kaarka aad baa mahadsantiin idinkuna xataa saxaafadda iyo journalistka iyo idaacadda iyo cid walba geesta kale afayeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Maxamed Axmed Geele ayaa ka waramay sida ay hawshu ku bilaabantay saaka sida ogtiin badde saaka waxa dalka oo dhan ka bilaabmay bixintii kaarka cusub muddo ay sugeynay si hadalaynay marka waxa nasiib wanaaga in si fiican ay u bilaabantay oo nabadgelyo way jiraan meelo xogaa yaryar ay ka dhaceen oo hakada hawlgal kasta oo galaba laga mooyaa dhibida ka timaada way jiraan laakiin intii wala gudbo la xalilay way jiraan isla markaa meelo gobolada shishe ah oo roob iyo daadad ay raakiyeen baabuurtii aasistay isla markaa way jiraan Hargeysa balka Hargeysa khaasatan caasimadda Hargeysa meel dib dhac far badan oo ku yimid dhowr saacadood laakiin iyagana waa ku gudbinaa war badnaa inta Hargeysa waxa ka intirintii waxa ku bilaawday qalabka inay u dirto gobolka ka sheeyo ka tiri idaarka sidii baro dhiganay dadna inta saarkay dhowr saacadood dib u dhacday waxaan filaynaa intaasna ay dhamaato guud ahaan si wanaagsan oo waxa socdaa wanaagsan ummadda waxaan ku guuleynaynaa si jahufan in ay qaataan kaarkooda waqtiga wada haysanaa oo muddo 7 ay wadayna marka in ay waxba isku xidhiidhin sidii loo wato intaasan sheegay talaabada lagu bedelay kaarkii hore ee diiwaan gelinta Soomaaliland ayaa in muddo dadweynuhu isweydiinayeen sida uu u suurta galayo iyadoo muddana la sugayay isla markaana ay jireen siyaasiyiin si cad uga hor yimi ama dhaliilo waaweyn dusha ka saaray habka diyaarinta kaarkaasi iyo suurtagalnimada muddada ay komishanka Soomaaliland ee doorashadu u qabteen in kaarkaasi la bilaabayo qaybintiisa balse mar kastaba guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyagoo isku duuban ayaa dhexda u xidhay hirgelinta qorshaha ay ku bedelayeen kaarkii hore waxaana saaka si cad u muuqatay in guddiga doorashooyinka Soomaaliland xukuumadda iyo asxaabta mucaaridku ay hareero taagan yihiin iskaashi buuxdana lagu furay saaka hawshan qaadashada kaarka cusub ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana ka howlgelaya ciidamada kala duwan ee Soomaaliland sida booliiska iyo militariga waxaana la arkayaa taliyaasha ciidamadaasi oo gaaf wareegaya qaar ka mid ah goobaha ku yaala gobolada gaar ahaan magaalada Hargeysa kaarka cusub ee la siinayo codbixiyaasha oo ah mid casri ah ayaa fure u ah hirgelinta doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda Soomaaliland waxaana mar kale xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland u baahan yihiin inay si adkaystaan kalsoonida iyo isku duubnida dhexdooda ka muuqata iyo inay mar kale ku taagnaadaan kana faa'iideystaan taageerada buuxda ee ay la garab taagan yihiin saddexda xisbi iyo xukuumaddu si ay ugu guuleystaan qabashada doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee ay u cayimeen bisha Juun ee soo socota toddobada xubnood ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku yimi xilkan mid ka mid ah 6 qodob ee beesha caalamku ay ku soo afjareen muran siyaasadeedkii ka aroosmay Soomaaliland sanadkii 2009 ayaa saaka ka gudbay imtixaankii koowaad ee dhinaca bulshada waxaase weli u haray imtixaankii kama dambaysta ahaa oo ah ama noqon doona qabashada doorashada madaxtooyada
ee ay u cayimeen bisha Juun. markasta waxa furo noqon doona codbixinta doorashada madaxtooyada ee soo socota tirada rasmiga ah ee ku guuleysatay qaadashada kaarkaasi cusub. Khadar Maxamed Cakulle, Universal TV.